السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وريال الصبح وناكسن الله الصبح وناكسن وهذا الرجال وهنا ودي السلام يا بعد السلام الصبح وناكسن صبح خير قبطة المدى ريال وحن دقيستي ما تقاني نيل يسوي إبراهيم عيدي بان شلس قرب يقول صوب حي وحني كاس كهالليو أنا بخشلا يا بيبا وحكولي يعني سوى محمد حاشية سواقع تي حرسي habarjal qarankay dhabar jabinaysaayo ciidan beelad bay samaysatayo dhulbaantay la heshiinaysaa inay soo qaadato ciidankeedii la soo siiyo maxaabiisteediyo wax noocaas ka sheekeeyay ma garanaysaa waan yaabayo waabaan u qaadan waayay waxaan ogahay inay been iyo propaganda tahay tiigar xajis baa Ibrahim u socon weydo tiigar xajis baa ka dhamaatay moogta hadda markaa wuxuu yaas kale isku saartaa baa leeyahay xalay habar jacayl gal habar jeclo hadda ogeydaan habar jeclo iska gasha meel dii habar jeclo geli mayso horta meel ogaata kow midda kale Ibrahim waxaan ku sheegayaa laba arrimood horta ciidan beelad inay samaysato xaq bay u leedahay habar jeclo xaq bay u leedahay inay isdiyaar garayso colaad iyo nabad labada mid walba isu diyaar garayso waayo hadda dawlad xagga ka xigtaa ma jirtee dee gurigeedii halkii ugu dhulbaantay u xigtay taagan yihiin ciidankii wada aragta halku marayo inta yare meesha lagu qabtay war jooga war fadhiista may fahanti hadday tahdo nabad baan doonayaana xaq bay ku leedahay waayo habar jeclo iyo dhulbahanto dee dagaal kama dhexayn dawlad iyo reer iyo dawlad baa dagaal ka dhexeeyay dawladdiina dee waa tii casar lasoo bacsaday ama ha la falo ama ciidanku ha isqabto ha soo kala baxaan ama muuse ha soo saaro ama ina taani ha soo saaro وعدي soo saartayba ciidankii waa iska soo dareeray faanti in yaraydo reer bareehayd iyo in lagu qurxiyana waa tii square-ka laga qabtay ma fahmaysaa maalinta ciidanku jabayna waa maalinta cali bare ka yimi horta habar jeclo difaaca dalka iyo qarannimada laba jirkooda iyo boqol jirkooda waa diyaar bay u yihiin taa lagu xaman maayo taa horta lagu xaman maayo laakiin habar jeclo Soomaaliland waxay nagu xamataa oo nagu maagtaa idinka muuse daba jooga idinka wax ka yeelaya idinka waxaan sameeynaya habar jeclo wax jecel baan mar wax u dagaalamay mooyaan hadda waxaanu niri waxa albaabka naga xidhan baa naga soo gashay hadda waxaanu niri mar hadii laga yimi meeshii la saanooday oo maanta ogleys uu yimi horta laba arrimood badde anigu habar jeclo horta waan ku boorinay inay ciidan beelad samaystaan taasi waa good waayo og hadaad u haysato xadka habar jeclo iyo dhulbaantada oo qula u haysato inaad ilaa iyo balidii kala ka sheysay maxay ahayd meeshii odayadu isku dili jireen bariga dhawid soo qorje misay maxay ahayd magaceedi ilaa iyo xudun inta u dhaxaysan xad la leeyahay tuulaba tuulay ku beegan tahay magaalo ay ku beegan tahay ariga iyaga la kala socda oo la kala celiyaa dee marka hadii dhulbaanta ila og ku ogay meeshii xuma jireen hadeertay waa tii soo yaacdeenay حتى حقا كسو مران وحقا نوديدا اسكا سو مران نادر سو ما awoodaan soo inaan markaa Israailiya ma hadad mari hoday oo tii ku ilaalinay wari leey anaga bila aragna oo wixii socon waayeen oo hadii halkii asal ahaan halkii habar jecel isugu yimi xaaladu taagan tahay inaan ciidan balad magaalo kasta u sameeysto haday jirto daanu ma boogi fariidnimada isku boogi reerka yaga haday jirto waa nice waana good وانا كنت هاجيرسنا تاسواتا habar markaad xirsi soo qaadanayso ninkan dawladda hoose laga maamulo maxamed xaashi oo isagoo aniga ayaan kula hadlaya garan waayba wuxuu hadlayay suu hadlayay ana fahminba ma fahminba baroorta waxa uu la baroortayna ma garanayoba fura cidi haysaana mid fura ana haya furaha nabadda ana gacanta ku haya run baan ku sheegayaa in xaashi cid ku haysta wallahi ma jirto oo kale ما يفهميسا واكي قرات جامع halka ka hadlay habar jeclo yaana lagu soo duulina furaha nabadana taas ku cadeynaysa inaadeer nabad baan doonaya hadaan ilaahdo oo dhulbaanta nabad la galiyana waan midaan arkay waanigu awal badal dhulbaanta ma haysan dawlad bay saysateen hadii dawladii meeshii ka yaraatay oo ay og joogto dhulbaanta inaan la heshiiyo iyo inaan la dagaalamo iyo inaan anigu iskay ula dagaalamo intaba xaq baan u leeyahay waxa tiri oo kale
waxay soo furanaysaa ciidankeedii nimankii ka xidhxidhnaa horta faysal ma xidhna 100 nin oo kale oo wada saraakiil xidhan waxa xidhxidhan ee hadda nolosha lagu hayo iyo dhaawaca meesha yaalla bay habar jeclo soo qaadanay taasi waa midaan suurta kaa gelahayn habar jeclo waa gobta isaaq intuu nin Somaliland u xidhan ka yimaado nin habar jeclaa inuu nin habar jecli soo saaro waa habeen xidhidki habar jeclo mid way odhan kartaa dhulbahantow dhulbahante haata xaajadu labadeennay maraysaa ee iska soo wareejiyay maxaabiistii waxaan madarayaa nabadna aynu kala qaadano ilaa anagu ismaynu hayn dhulbahante way odhan kartaa ciidanka iyo waxa way keeni kartaa laakiin nin habar jeclaa inta la keeno baa nin Somaliland laga imanayaa waa waxaan dhicin waxaan maqlay 4 nin oo dhaawac halisa ah oo dhaawacoodu khatar yahay ayay hayaan nimankaana dhakhaatiir looma hayo waa saan anigu xogta ku hayo sax ah 4 nin Somaliland oo dhan bay ka kooban yihiin habar jeclo nin baa ku jira ciise habar yoonis guda biirsay nin walba meel bay kaga taala qaar waa baaralays 4 nin garow waa la geeyay waa laga soo celiyay qaar oo lascaanood baa la keenay in kuwa la soo gudbinay waa dhakhaatiir ma haystaan dhakhtar ma yaalo meesha in kuwa baaralayska la iska soo gudbiyo leh war naga horta bal kuwa naga qaata way dhici kartaa 4 nin waliba laba wax lagu yiri garow waa la geeyay laba la keenay laba la socod ugu soo celiyay waa saan maqlay way dhici kartaa kuwa laakiin in adeer Somaliland dabar jibin maayo anigu xumayna maayo intaan wadayna waan waday hadeer nabadu gundahayga taala dagaalkuna gundahaygu yaala labadaba anaa basteemayn kara ma fahanti labadaba anaa bilaabi kara haddaan waa la gelayaa waa la gelayaa haddaan mar la geli maayo nimanka inaga daayana adeer meeshii ka soo qabaydo nimanha soo halkaygii ma joogtaan ciidanku halkiisa joogo inta dhulbaanta isagu si uu soo gelay isaga waa sabcaanaho Puntland ku haysataa meeshiiba kuwana dhibaataba haysata reer Soola hadeer Puntland baa tiri caris dhaqaajiya anaga idin xukumayna yaa idin kana mid baan u sheegaya marka taasi waa taasi mashruucaasi ku socon maayo mashruuca habar jeclo ku socon maayo nin siyaasiin anigu ima khuseeyo habar jeclona ma matalo habar jeclo salaadiinteedii ma hadlin suldaankii guud ma hadlin suldaankii ku xigay ma hadlin gudidii ma hadlin wax maanta qaran ka soo horjeeda ma jiro laakiin waxaanu eegaynaa dee yaa wii indha adeer may fahmaysaa habar jecday sidii wax waa meel gelisay ma gasho miirsatay waxayna ku miirsatay ciidankii 7 casho cali barka ka soo maqnaa bas 2 week isla markiiba waa ka dimi ciidankii oo yacaya ka daba yimid waa ninkii wax la wada garo ku waashaba war ciidan jawaanigu meesha kuma ogay oo waxa ku ogay ciidankii soo markiiba lama kala furfurin aad ka timi war nimankan meesha anaga ku hayna kana nimi meesha odayga ka tag meeshii ciidankii wata laga daba keenay anu oo ku qaban war jooga bistika waa baydeeri war yeedinayaan habar bay qabaale war waydi salaamaya aad bardi salaamaya in maad reeyalow yayna kaftanka nooc nacasnimada ay sula imanin hadii kale waa la sheegaya wax kasta ciidan qaxaya oo soo galay war qaboojiyay war biyasiya war maxay deeriyay wixii yariyay xitaa la garan way war yeedinay ma jilba war ma yeedinay dadkii ciidankii ku og kooxa cadayay 9kii subaxnimo soo galay war maxay deeriyay war yeedinay war naastay war joogay war fadhiistay war wano horta ciidankan ma baananayna baamba meesha nagu soo xigeliyaa gabadha waa laga dhameeyay baamba ka soo baxday meesha war reer Somaliland in baad reeyal waxa ka akhrisan mayso Somaliland habar jeclaas qaranka jibinaysa ka akhrisan mayso wax kale Ibrahim ugu sheekay wax kale qaranka wax kale ugu sheekay garxajiska hagiyo meel iska reeriyo aad beenta ka dhuri jirtay ana waa la nagay war waa salaamaya